saliid macsarada waa saliid aad u qaaliya waxayna leedahay faa'iidooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin sidaa daraaddeed saliid macsarada waxaa la isticmaali jiray kumanaan sano ka hor oo dadka Hindida iyo dadka Shiinayska ayaa u isticmaali jiray daawo lagu daaweeyo cudurro badan waxaana loo yaqaanaa saliid macsarada Queen of Oils oo ah macnaheedu boqoradii saliidaha waxayna magaca ku mutaysatay qiimaheeda caafimaad iyo cunno ahaanteedaba sidaa daraaddeedna saliid macsarada waxaa waddankeena laga isticmaali jiray muddo aad u fog iyadoo loo adeegsan jiray shiidideeda neefka geela haddaba haddii aynu isku daynay inaynu ka hadalno faa'iidooyinka ugu caansan ee ay leedahay saliid macsaradu isla markaana cilmi baadhis lagu xaqiijiyey iyo cudurrada lagu daaweeyo waxaa ka mid ah kuwan soo socda السلام عليكم daawadayaasha sharafta badan oo ku soo dhawaada mowduuceena maanta ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo saliid macsarada ugu horeyn saliid macsarada waa saliid cunnada loo isticmaalo oo leh caraf udgoon macsarada waxay ka hortagtaa cudurrada kansarka maadaama ay tahay antioxidant awood leh sidoo kalena waxa macsarada ku jira ugu yaraan 7 maado oo xanuun baabiya ah sidoo kalena macsarada waxa lagu daaweeyaa diiqada walwalka iyo hurdo la'aanta sidoo kalena macsarada waxa lagu daaweeyaa yiridka iyo cudurrada ku dhaca afka sidoo kalena macsarada waxay daawo u tahay kolestaroolka kacsan sidoo kalena macsarada waxay joojisaa qalfoofida xididada waxayna furtaa xididada xaniban ee wadnaha gala sidoo kalena macsarada waxay jilcisaa caloosha waxaana lagu daaweeyaa saxara adayga sidoo kalena macsarada waxay daawo u tahay wareerka iyo aragtida daciifka ah macsarada waxa kaloo lagu daaweeyaa xasaasiyadda iyo cuncunka jidhka macsarada waxa kaloo lagu daaweeyaa kacsanaanta iyo isku buuqa maskaxda macsarada waxay nafaqo u tahay koriinka tinta ama timaha wayna dheeraysaa timaha macsaradu waxay kaloo oogada ka ilaalisaa ilayska iyo kulaylka qoraxda intaa kadib saliid macsarada waxay kaloo daawo u tahay xanuunka caadada iyadoo la marinayo caloosha qaybta xudunta ka hooseysa xilliga caadada sidoo kalena saliid macsarada waxay yaraysaa qaleylka iyo xanuunka haweenka dhalmadeyska iyadoo saxaaxa lagu subkaayo sidoo kalena saliid macsarada waxaa saliidda macsarada ku jira borotiin aad u badan oo ku filnaan karo qofka haddii uu cunto ka dhigto sidoo kalena saliid macsarada waxaa ku jira dufanka kordhiya xasuusta iyo waliba xifdinta sidoo kalena saliid macsarada waxaa ku jira vitamin E kaasoo firfircooni geliya wareegga dhiigga waxaa kaloo saliid macsarada ku jira maadooyinka calcium potassium phosphate oo jidhka uusan ka maarmin macsarada waxay u horeysaa sidoo kale saliidaha loo isticmaalo daliigidda ama masaajka maadaama maqaarka jidhka ay si sahlan uga gudbayso ama uga gudubto sidoo kalena saliid macsarada waxay daawo u tahay kacsi la'aanta iyo hamiyarida maadaama macsarada laga helo 4 maado oo muhiim u ah kacsiga iyo badinta biyo-baxa sidoo kalena macsarada waa daawada ugu fiican xanuunka loo yaqaan sciatica oo ah xanuun neerfaha ku dhaca haddaba sciatic waxa uu keena dhabar xanuun iyo lugu xanuun aad u daran dhinaca kale macsarada waxay ka qayb qaadataa kantaroolista cadaadiska dhiigga sidoo kalena macsarada waxay daawo u tahay babaasiirka ama babaasiirta qofkii macsaro joogteeyana babaasiir isma arkaan waa sida lagu xaqiijiyay daraasado aad u badan macsarada ma aha saliidaha kiciyo gaaska ama laabjeexa keena dhinaca kalena macsarada waxay raagi kartaa muddo aad u dheer iyadoo weliba aan isbedelin maadaama macsarada ay ku jirto bakteeriya la dagaalanta caabuqa sidoo kalena macsarada waxay daawo u tahay caabuqa sanqada oo 1 dhibic oo sanka lagu dhibciyo ayaa ku filan dhinaca kalena macsarada oo lagu luqluqdo subax kasta waxay ka hortagtaa caabuqa quumanka iyo cuno xanuunka sidoo kalena macsarada waxay daawo loo bogay u tahay kala goysyo xanuunka dhinaca kalena macsarada waxaa lagu daaweeyaa cudurka Atlas foot oo ah caabuq fungus ah oo ku dhaca faraha cagta dhexdooda oo u badan orodada iyo ciyaartooyga intaa kadibna
macsarada oo lala isticmaalo biyo kulul waxay daawo u tahay cabeebka farjiga ee dumarka. sidoo kalena macsarada waxaa lagu daaweeyaa xanuunka furuuruca ay keento xafaayadda loo xidho caruurta. sidoo kalena macsarada oo ilmaha iskuulka aadaya loo mariyo sanka waxay ka ilaalisaa hargabka, ifilada iyo samboorka ay ka qaadi karaan caruurta kale. sidoo kalena macsarada waxaa lagu daaweeyaa goonjabka iyo madax xanuunka noocyadiisa kala duwan iyadoo madaxa lagu xidho. sidoo kalena macsarada oo la qiiqsado ama la isku huuriyo waxay daawo u tahay neefta iyo caburnaanta marinada hawada. ugu dambeyntiina daawadayaal, macsarada waxaan la siin keliya qofka shubmaya, waayo macsarada waxay tahay calool jilciye waxayna sii kordhinaysaa shubanka.